sameeyo lagu dhaqaaqo aad baa maasantahay Dr. Cabdilcaziz dib baan ugu soo noqon doonaa su'aalaha kale ee la xiriira waa maxay nabadda iyo dabcan sida lagu heli karo iyo sida ay uga qayb qaadan karto in xadgudubyada dhibaatooyinka ku ah qaxootiga lafahanteeda laga gudbo waxaan jeclaan lahaa in markan khadadka taleefanada iyana aan la qaybsano dhinaca afkaartooda iyo aragtidooda hello assalaamu calaykum magacaaga walaal la yiraahdo ku soo dhawo walaal barnaamijka waata walaal aad baa u mahadsan tahay dabcan iska yara gaabi telefishinka dabcan sidaad la socoto shalay iyo maalmahan oo dhanba meelo fara badan oo dunida ah waxaa si weyn looga hadlaya ama muuqaal ahaan ha looga hadlo ama maqal ha looga hadlo ama qoraal xadgudubyada haysta qaxootiga Soomaaliya ayaa ka mid ah dalalka sida weyn looga hadlayo warbaahinta caalamka markaad eegto qaxootiga Soomaalida dhibaatooyinka haysta sidee u aragtaa maxaa si xal noqon kara oo dhibaatooyinkaas looga gudbi kara walaal horta jirka ay danqanayo waana masiibo inagana haysta ma garatay waad u jeedana ma waa arkaynay dadka ku dhibaataysan xamar gudaheeda bal intaan qaxootiga korba la gaarin gaartay kuwa kor jooga iyo maxaan ku radaa banaanada ama maxaan ku radaa magaalooyinka kala dagaaladu ka dhacayana kuwaas cidba uma xisaabsana gaartay horta ragga madaxda haday damir leeyihiin hooyooyinka iyo ayeeyooyinka iyo ilmaha yaryar ku dhibaataysan ee garbasaaraha looga dhigay guriga ayay ka diirnixi lahaayeen aad iyo aad dhibaatada ina haysaan halkaas kasta oo ay ka imaado gaartay waligeena waxaan ku jirnay maxaan ku radaa dhibaatadaas walaale waxay ka soo bilaabatay ilaa iyo dagaaladii ilaa haddana waxna qabanayo uma jeedno marka waxaan codsan lahaa aqoon-yahanimada iyo nimanka meelaha farfadhiyo dhaaya anaga aqoon-yahanaa iyo aqli iyo maxaan ku radaa mas-uulnimada haayo inay walaalayaal u danqadaan dadkaas oo intay dhex galaan dadkaas shabaabna waa wiilasheeni raggaana waa wiilasheeni intay dhex galaan ay yiraahdaan balorta masiibadan ina haysa fiiriya oo ay dadkii hoos u tusaan waxaan u malaynayaa waa gartay laakiin markaad eegto dhibaatooyinkan jira iyo sida ay uga hadlayaan shacabka ama aqoon-yahan ama siyaasiyiinta ama dadka kale ee culimada haddana aad moodid inaanay jirin aragti dhibaatooyinkan lagaga xadgudbo maaragtay looga hortagi karo oo xilligan shaqayn karta inaanay jirin maxaa sabab u ah ayay kula tahay arrimahan oo dhan waxaa sabab ah walaale horta dadkeenu isku maskax iyo isku aragti haday ka qaadan lahaayeen dhibaatada jirta ama qurba ka jirta ama gudaha ka jirta horta dhibka waa laga midoobi lahaa gaartay isku aragti ma aqoonyahankii iyo wadaadkii iyo kii kale askarigii iyo sheekhi iyo maxaan ku midka madaxda oo maxaan ku dawladda sheeganaya kulli isku aragti kama joogaan waa gartay marka hadaan qofna ka naqanayo qofna caadi u arka dadka hadda gudaha joogana ay la noqotay wax caadi oo maartay dib aanay ku haynin dadkaasi waligeed walaal waxa loo gaaraya malaha laakiin markaad eegto inta badan caalamka waxaad moodaa in dawladaha jira si weyn loo ilaaliyo shucuubta gaar ahaan noloshooda shaqadooda waxbarashadooda iyo amnigooda Soomaaliya markaad eegto waxaad moodaa in hogaamiyaasha dhinaca siyaasadda xataa aanay ku mashquulsaneen wixii loo tari lahaa shacabka dhismihii loo sameyn lahaa cunooyinkoodii caafimaadkoodii amnigoodii oo lagu mashquulsan yahay oo kaliya xilal iyo maaragtay dabcan mansab marka ma isleedahay siyaasadda dhinac khaldan laga fahmay waa laga fahmo walaaleed yaa adiga yaad xil u haysaa hadii dadkaagii baaba'ay horta yaa adiga yaa u shaqaynaysaa hadaad u shaqaynaysid naftaadana hada waa meel hadaad dadka u shaqaynaysid waa dadka inaad hoos u eegto hooyooyinka isku dhimanaya iyo hooyooyinka dhig la'aanta iyo maxaan nafaqa darada ku hayso waa inaad hoos u fiiriso waa inaad dalkaagii fiiriso markaasaad wax helaysaa waa tahay aad iyo aad baa u mahadsantahay walaal waa mahadsantahay walaal adna waa ku salaamay waalaikum salaam khadka xiga ee barnaamijka ka qayb galaya isla aragtidiisa ku saabsan dhibaatooyinka qaxootiga haysta iyo sida looga bixi kara hello assalaamu calaykum calaykum assalaam magacaaga walaal magacay waa buraale aadan deeqo xagee joogtaa walaal waxaan joogaa Manchester ku soo dhawo barnaamijka dabcan dhibaatooyinka haysta qaxootiga Soomaalida iyo waxyaabaha ay ka tari karta haddii nabad la helo ayaan jeclaan lahaa laftirkaaga inaad soo gudbiso waa mahadsan tahay waa salaamadii dhamaan adaa mudan barnaamijka qaxootiga waxa weeye hadda waxaa la abuurayaa qaxooti hor leh gartay anigu waxaan u malaynayaa runtii saraakiishii xoogga dalka Soomaalida waa ka tirsanaa gartay dowlayaashii ciidanka aan ka tirsanaa waxaan arkayaa meeshaani dhibaatada Soomaaliya in la qaxiyo waa wax loogu talagalay weey ma waxay fadlanti waa gartay waxaan shabaab baa la dagaalamaa ii sheegay
dadkan amisooni waxaa la dagaalaa iyo museveni waxay kor loogu soo geeyaan murubuleedka meesha ka taagan markaba waxaad leedahay dhinacyada ishaya oo dhan ayaa dabcan siyaasado khaldan wataa dabcan ma fahanti waa gartay marka dabcan cabdicasiisna waa uu ka dhawaajiyey dhibaatada ugu weyn waxa ay tahay khilaafka iyo isfaham darrada u dhaxaysa dadka soomaalida gabadhii ka horeysay laf ahaanteeda waxa ay ka hadashay sida soomaalidu ay ugu kala duwan yihiin mararka qaarkood aragtida dhibaatooyinkan sida looga bixi karo iyo cidda dadka ka saari karta marka waa maxay marka xalka haddii dhinacyada ishaya mararka qaarkood lagu eedeynayo inay dabcan siyaasado shisheeye fulinayaan dadweynihii soomaaliyeed iyo aqoon-yahankii iyo dadkii siyaasadda dabcan inta badan ku jirana laga yaaba inay ka hurdaanba arrimahaas ama aanay ka warhayninba waa gartay haddaan kasoo qaada waxa weeye dhibaatadan oo kale markay dhacdo waxay ahayd odayaasha marjaca inta loo noqdo loo isku tago dhibaatada waxay dhigita waxa wey waa soodkood gartay khaasatan yani qabaa'ilada ugu badana aan codka ku dhuftay mataqaanaa hawiye magarata ii sheegay ayaan waxaan lahayn odayaal marjaca oo go-aan gaari karo oo waxaan isku raaci karin ayaa ka dhintay maanta marka ma waxaad leedahay haddii odayaasha dhaqanka ee dhinaca koonfurta ay go-aamo ka gaari karaan mararka qaarkood sidii dhibaatada looga bixi lahaa iyo sidii maamulo loo sameyn lahaa waa ay suurageli kartaa laakiin hadda gacantooda laga barowsaday ما شكلي من السنوية محل مسافين قاعد يكون عندها مستقبل Soomaaliya gaar ahaan arinta qaxootiga markaad eegto sidee ugu haboon ayay kula tahay oo qaxootiga Soomaalida dhibaatooyinka haysta looga gudbi karaa anigu waxaan leeyahay runtii ma taqaana ii sheegay yani albaab kasta laga soo xiriyo waa loogu talagalay inay qaxaan waa loogu talagalay inay badda ku dhamaadaan waa loogu talagalay maaragtay ii sheegay maxaan ku leedahay inay mataqaana banaan ku baaba'aan mabad waa taa walaal aad iyo aad baa umahadsan tahay waya waa tahay khadka xiga halow waa tahay khadkaasna waxaad moodaa inaanu soo gelin dib ayaan ugu soo noqon doonaa Dr. Cabdicasiis dabcan ka sokow waxqabad la-aanta aqoon-yahanada iyo culimada iyo odayaasha iyo dhammaan dabcan Soomaalida oo dhan oo lagu eedeynaya lafahantooda inaanay arrintan waxba ka qaban karin sidee ugu haboon ayay kula tahay oo nabad lagu heli karaa isla markaana dadku ay iskula fahmi karaan fikradda dhinaca nabadda ku saabsan horta nabad la-aan waa nolol la-aan sidii nabad la waayo dhibaatadan maanta aan ku jirna ku jirayna nabaddu waa deganaansho iyo xasilooni iyo dagaaldeed marka nabad waxaa lagu heli karaa keliya inaan khilaafka joojino khilaafka qof walba 99% waxaan hubaa dadka Soomaaliyeed mashaakilka ma wadaan laakiin khilaafkii ku dhex jiraan way kala qaybsan yihiin haddii kala qaybsanaantaas meesha laga bixiyo oo la isu yimaado marka dhibkii waa loo jeednaa qof walba maanta oo maskax leh wuu u jeedaa dhibaatadan haysato wax in laga sheekeeyo u baahan maaha inay wadciga aan taaganahay cunuga yar wuu ogyahay marka haddii aan midowno oo aan ka midowno afkaarta aan haysano oo qabiilka iyo khilaafaadka diinta waxyaalahan markii Soomaaliya isku diin waa isku luqad waa wax khilaaf meesha ma jiro haddii aan midowno oo la wada hadlo la wada fariisto waa si sahlan lagu gaari karaa laakiin haddii sidaan ku socono laakiin dabcan inta badan marka laga hadlayo aragtida iyo fikradaha curiya sida xasilooni lagu heli karo sida nabad lagu heli karo waxay ka timaadaa dadka aqoon-yahanka ah oo wax uun dheer maaragtay dadka caadiga ee shacabka maxaa u diidanay kula tahay in aqoon-yahanada Soomaalidu ay mowqif midaysan ka qaataan arrintan isla markaana wacyigelin iyo dadaal ay la yimaadaan si dadweynaha Soomaalidu ay u kacaan ama dabcan looga wacyigeliyo xadgudubyada dhacaya horta marka hore tawfiiqda dhiman ilaahay agtiisa wax kasta ka dhamaadaan laakiin haddana ilaahay wuxuu ku yiri dadaal annaga kula jiraahay dadaalkii dadkii sida sheegaysan waa jira aniga hadda waxaan sameeyay website oo nabad raadin ah oo la yiraahdo nabadradin.com qof kasta uu gali karaa uu fiirin karaa ujeedada kale kamalihi ujeedada aan kale kaliya waxay tahay Soomaaliya inaan midayno inaan nabadayno Soomaaliya oo nabad ku soo noqoto ani siyaasad ma rabi xukun ma rabi
dan lacag kama lihi waxaan leeyahay kaliya aan ka rabaa Soomaaliya xamar inaan ka degi karo 200 jeebkii ugu jirta inaan leega xoogeyn daawo inaan heli karo waxbarasho aan heli karo dadkeygii aan ku dhex jiri karo kiwaanta waa duqoobni waa gabownay dhalinyaradii intay baabaasan yihiin oo culture cusub iyo waxyaalaha dhex galeen marka initiative-ka ugu fiican aniga waxay la tahay ani aragtideen ka hadli karaa website-kan hadda u fiirstaan gashaan ula jeedadiisa hadee xogahan waa idin soo gaabina wuxuu yahay in Soomaaliya la mideeyo horta wax kasto waxba tawfiiqna waa dhiman tahay waxba dadka dhalinyaro Soomaaliya wax bartay way buuxaan laakiin wadanima ka maqan aniga doctor aan ahay professor aan ahay ma ahan meesha professor waxa jira soo bartay cilmiga مثلا engineer bartay ma yaqaan xalinta Soomaaliya ama ma rabo inuu xaliyo ama farkiligeed fool ma dhaqdo wuxuu u baahan tahay in la midoobo marka si maskaxdii dadka ayaana wax mideyn karto maskaxdii dadkana waa dadka wadaniyiinta ah oo u kacay inay mideeyaan ee waxaan suurtageliyaan marka sida kaliya lagu suurtagelin karo waxay tahay in aan helno dad bisil oo yaqaano dhaqanka Soomaalida oo wax garad ah macnaheedu ninkan takhtar waa professor waa kaliya maahan waa inuu yaqaanaa dhaqanka Soomaalida waa inuu yahay nin wadaniya waa inuu initiative uu leeyahay energy uu ku sameyn karo waxaas oo kale uu ku dhaqaaqay marka aniga kolay website-kan markaan bilaabay dad badan waxay yiraahdeen nabadda ma suurtagelaysa ma iska daysid waa wada marka fikradaha iyo qoraalada ku saabsan nabadda yaad la qaybsataa oo aad ugu tala gashay inay laf ahaantooda ay eegaan oo ay ka doodaan laf ahaantoodana maybe ay wax uun ku soo kordhiyaan dad badan oo waxa jira dhalinyaro ah oo isku fikradanahay dadkaas ayaan wada tashanaa oo telefoonada ku xirnaa Mareykanka joogan Australia joogan Ingiriiska joogan Carabiga joogan oo wadanimo ku jirto laakiin aamusan anagii hoos waa ka wada hadalnay waxaan nirey sidaan ma anfacayso dadkii waa wada aamusan yihiin waxa loo baahan yahay maskax dhaqaaqda oo wax yimidaysa oo aan ku jirin jeermigan shaararkoodan dhiig ay ahayn anaga dagaal kama soo qayb galin mar rabno inaan wax dilno qorin wax lagu nabad lagu heli karo yani waxaan aaminsanahay dagaal waa aragnay 20 sano inaan nabad lagu heli karin nabad waxa lagu heli karaa kaliya in la wada fariisto la is cafiyo la is dhageysto xadgudubkii iyo wixii la is raali geliyo ay dadkii Soomaalida ay wada fariistaan si taas loo helo laba qof oo dagaalaysa ayaga ma heshiinayaan in la dhaxgalay u baahan tahay marka inaan dadkaas dhaxgalno marka anaga hadda koow 3 phase rabaa inaan ku shaqeyno phase ku horeysa wuxuu noqon doonaa wacyigelin dadka nabadda maxay tahay sidee lagu heli karaa inaan aruurino website-ka qof alla qofkii www.nabadraadin.com soo gala fikradiis uu noo soo diri karaa fikradahaas aan rabnaa inaan aruurino then qaybaha ku xiga waxaan sameynaynaa fikradahaas dad inaan soo aruurino ama dhalinyarada aan ku sheegay hadda iyo wixii kale oo lagu soo biiro inaan meel aan isku aruurino aan ka wada hadalno ka fikradda aniga teeyada waxa laga yaabaa in qalad tahay fikradiisa in qalad yihiin aan meel fariisano aan isku keenno fikradii wixii suurtagal ah aan aragno markaas aan mideyno markii ay waa huba nabad adduunyada dagaalo badan meel badan ka soo dhaceen waa la xaliyay yaa xaliyay maskaxa xalisay maskaxdiina waa jirtaa laakiin dhaqaaqiya ka maqan marka aniga hadda gaari hadaan raba inaan wado iiwad ama gaari inaan la hadlo mood maayo inaan dhaqaaqo waa dhaqaaqi nabadda ayaa naga niman inaan u dhaqaaqno nabadii marka dadkan dagaalamay waa dad Soomaaliya luqad ku hadlayna anaga marka dadkaas inaan la hadalno isu keenno waa qaybta saddexaad aad baa mahadsantahay ku soo noqon doona marka la khadadka telefoonada hello السلام عليكم. عليكم السلام. magacaaga walaal. السلام عليكم رضوان magacaygu waa Muxuudiin Xasan Xuseen Xaraare. xagee joogtaa walaal? marka Ridwaan wadii fikirkayga aan dhiibto walaalow waxa xasuustaa hadda ka hor in aan aniga adiga program noocan aan idinka soo wacay adoo idin dhahaaya Soomaaliya waxay ku hagaagi kartaa inaynu helno hal shakhsi oo Soomaaliya oo dhan ay jeceshahay marka maadaama maanta ay sidii muuqataa dana waxa soo isbacay in ragga qaarkiis ay ku dhaqmaan in yani wax muuqda in maanta ayadoo loo jeedo idaacadaha meediyaha dhinac walba andeergaradka aqoonyahanka ay ka leexdaan war soo magacaabida ra'iisul wasaaraha waxaa si xaq u leh
مدعوينها نينكا الشيخ شريف وحاجة على الله إن آذن هلا وحاجة